kabacdina isla ayaamihayba Cumar Aadan ayaa soo abaaray oo wuxuu yiri arrinta tani inay sidaa ku dhamaato sidaa ku dhacday inay iskaga dhamaato sidaas ayaan ku ogaaday oo martiqaadkan imaanshihiisa u ahaa marka waxaan yani maaragtay 7 sano ka hor markii Aadan Cabdulla Cusmaan Allah u naxariisto u dhintay inkastoo geeridiisu ay midaysay dareenkeena haddana waxay u ekayd duruufteena xoogaa inay kala daadsanayd inkastoo duruuftii weli ay taagan tahay laakiin waxaan xusuustaa 25 sano ka hor waqtigaas sida geeridii Cabdullaahi Ciise ay u midaysay oo u qabsatay dareenka qaranka marxuumka oo geeridiisa laga keenay Yurub waxaan xusuustaa sida idaacadihii dawladdu ay barnaamijkooda ugu jeediyeen tacsida iyo ka hadalka marxuumka iyadoo oo marxuumka la xawaalay markaa waqti qoraxdu ay kulushahay oo harkii ah waxaan xusuustaa Maxamed Siyaad Barre iyo Aadan Cabdulla Cusmaan iyo Maxamed Ashir Hamaan oo is dhinac socda oo dhex lugaynaya dad ciidaa ka badan oo meedka daba socda laakiin dhimashada dadka noocaasi madaxda noocaasi marka arrintan oo kale ay dhacdo in aan xusno ka bacdina arrintu ay dhamaato sida ugu fiican maaha oo aan la macaamil karo waxaan isleeyahay sida ugu fiican waxa weeye in taariikhdooda iyo ficiladooda iyo fikradahooda dareenkeena midaynaya aan daraasadayno si aan shidaal uga dhigano oo ugu hirano niman tagtadiisa aqoon taagantiisa ma fahmo timaadadiisana ma daryeelo waxaan jeclaan lahaa markaas caawo in aan wax ka xuso taariikhda hogaaminta wax ku oolka ah ee Soomaaliyeed markaan leeyahay taariikhda wax ku oolka ah macnaha ma dhihin taariikhda hogaaminta Soomaaliyeed mana dhihin dabeecadda taariikhda hogaaminta Soomaaliyeed taariikhda wax ku oolka ah taariikhda wax ku oolka waxaan mawduuca u xushay waxaan rabaa inaan soo koobo hogaamin wax ku ool ahna macnaheedu waxa weeye hogaamiye dadaal sameeyay oo ka tagay natiijo aayatiin leh laba waqti ayay ugu faahfaahsan tahay taariikhda noocaasi taariikhda Soomaaliya inkastoo ay jiraan waqtiyo kale oo si kooban waxyaalo muhiim ah oo ku ool ah loo xusay labada waqti waxa weeye xilligii udis ama ururka dhalinyarada Soomaaliyeed oo SWR u taqaaniin iyo xilligii qarniyadii dhexe ee dawladdii awdal laakiin waxaan rabaa in aan dib idin celiyo dhowr kun oo sano ka hor fadlan abuukar musawirka uu ku qoran yahay labada qof u qayb dadka koox ugu qayb waxaan rabaa inaad ila aragtaan hogaamiye Soomaaliyeed oo la sawiray 3500 oo sano ka hor meelo kala fog si ay u arkaan si gaarsiiyaan hogaamiyahaas oo la rumaysan yahay inuu raas casayr meel u dhow uu saldhigiisu ahaa iyo wixii laga yiri sida ay u arkayeen dadkii sawiray oo ah masaaridii hore dadkaas gadaal ma gaar maamulaan si yani maaragtay sawirka waxaa ka hadlaya aad ila fahamtaa marka masaaridu wuxuu hogaamiyahani kaliya wuxuu nasiib u yeeshay in la sawiro oo arrintiisa la faahfaahiyo waqtigaas waa ninka la yiraahdo 5 markab oo waaweyn oo boqoradii xabsashuud ay soo dirtay ninkii ay u tageen oo ay la kulmeen oo 5 markab oo ciidan xoog leh oo isugu jira shaqaale iyo ciidan hubaysan ay la socdeen masaaridu waxay u sawireen nin madax ka ah nidaam aad u abaabulan oo kooda la mid ah xataa magaciisa waxaa la oran jiray Berxo afka masaaridana magaca Fircoon waxaa lagu yiraahdaa Berco waxaad garanaysaa labada magac labada cinwaan oo labada madax la siiyay si isku dhawaayeen xaaskiisa oo la sawiran waxaa la oran jiray oo ahayd iyadana boqorad loo tixgeliyay waxaa la oran jiray Aati magacaas oo kale amiirad magaca masaarida wuxuu ku ahaa amiirad buu ku ahaa laakiin isagu nasiibun buu u yeeshay kunkii sano oo isaga ka horreeyay masaaridu waxay ka hadlayeen nidaamka noocaas jiritaankiisa wax yar ayaynu sida aynu u aragno taariikhda Soomaaliya iyo sida ay tahay sida inaga loo kala dhacsiyo sida ay tahay farq weyn baa u dhaxeeya baaritaano cusub oo la sameeyay waxay sugayaan in
jiritaanka qaranka Soomaaliyeed ka ahaan ummad degaan iyo luqad iyo dhaqan u gaar uu ku siman yahay 6,000 ilaa 7,000 sano ka hor marka xeebaha Soomaaliyeed waxay ahaayeen xarig marsh ilaa meesha la yiraahdo koonfurta Yurub ilaa koonfurta Pacific waxa ka hana qaaday 15 boqortooyo oo waaweyn oo inta isdaba taxay 15 boqortooyo oo waaweyn mid kaliya oo ka fursatay in ayna Soomaaliya soo booqan oo xiriir la yeelan ma jirin nidaamka noocaas oo ayna wax badan ka ogeyn maxaa keenayay bal ka fakar waxa keenayay inuu inta jiro oo intaas uu amba qaadna ma jiro wadan kale oo Afrikaan ah oo sheegan kara in muddo inta leeg dadkiisu dal iyo dad joogto ah oo meeshaas kale ugu nool wadan kale oo Afrikaan oo la heli kara ma jiro wadan kasta dadka ku nool maanta waa dad meel kale ugu yimid taariikhdiisu isbedeshay Soomaaliya kaliya uma lahayn waxaan jeclaan lahaa taariikhda inaad iga celisaan hadda mawduucayga aan isku koobo waayo taa markaan kasoo tago waqtiga la hayo wax faahfaahsan oo qoran waxay ahayd waqtiyadii miilaadka dhowr qarni oo ka horreysay miilaadka iyo dhowr qarni oo ka dambeysay laakiin waxyaalaha ay ka hadleen waqtigaas Greek Romaankii baa ka hadlay waxyaalaha ay ka hadleen waxay ahaayeen inta badan xadaarad ka jirtay xeebaha magaalooyin waxyaalaha arrimaha siyaasadda aad uga ma ay hadeen waqtiga ugu horreysay ama qofkii ugu horreeyay oo arrin siyaasadeed hogaamin wax ku oo Soomaaliyeed faahfaahiyay oo ka hadlay wuxuu ahaa al-Mas'uudi 11 qarni ka hor al-Mas'uudi oo ku abtirsada saxaabiga Abdullah ibn Mas'uud waxa la yiraahdaa Herodotus-kii Carbeed baa la yiraahdaa Herodotus wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyay oo taariikhna Greek buu ahaa 2700 sano ka hor ninkii ugu horreeyay taariikhna nidaamsan qora marka inaga aageena Herodotus baa la yiraahdaa wuxuu ahaa al-Mas'uudi marka taariikhdaas nidaamsan oo uu ka qoray adduunka waxa ku jirtay boqortooyo ka jirtay dhulkan u dhaxeeya Shabeelle ilaa webiga la yiraahdo Galaana oo ku dhamaada Milindi boqortooyo Soomaaliyeed oo ka jirtay uu sifeeyay oo magacyadeedii iyo qaabka uu wuxuu dhan Soomaali ahaayeen halka boqortooyo ka jirtay meel baa xarun u ahayd uu ku magacaabay Daaru Mamlaka baa xarun u ahayd wuxuu yiri marka waxay lahaayeen boqorro iyo xeerar ay ka dhaxleen dadkoodii salafka ahaa xeerarkaas boqorku hadduu ka leexdo boqorka xukunka waa laga qaadan jiray caruurtiisana waa laga xarimi jiray inay xukunka qabsadaan mar labaad ciidamadiisu waxay dhamaayeen ilaa 300,000 sida hadda reer waamoodku ay sameeyaan dibida ayay reeran jireen boqorka waxaa la oran jiray waa ilmo waa macbuudkii waagaa Soomaalidu ay caabudi jireen islaamka ka hor marka waa ilmo waxaa loogu baxshay uu yiri boqorka iyo Ilaahay baa xiriir laga dhaxaysiin jiray marka boqortooyadaas ayna wax badan ka ogeyn baa ugu horreysay wax la sifeeyo waa Mas'uud 11 qarni ka hor sifeeyo taa ka soo tag al-Mas'uudi markaas Zaylacna wuu xusay Zaylac wuxuu yiri dad muslima iyo dad gaala baa ku wada nool oo gaaladu waliba badan yihiin nidaam noocaas ah laakiin ma u faahfaahin siyaasadeeda ma u sii faahfaahin haddii markaas waqooyiga ku noqdo waxaan dhahay dawladii dhexe ee Awdal dawladii dhexe ee Awdal ninka isaguna wax faahfaahsan oo hogaamin siyaasadeed oo ka oo ugu horreeyay xusay wuxuu ahaa ibn Saciid oo isaguna caan Soomaaliya aad u hadlay dadka Soomaaliya aad u caan ku ah oo isagoo qarnigii 13aad waqtigu uu qoraya waa xawaali 1250 miilaadi Zaylac waxa xukumayay buu yiri Zaylac waxa ahayd magaalada ugu xusid badan oo ugu caansan Soomaaliya waqtiga marka waxa xukumayay buu yiri niman odayaal waxa ka socday nidaam isku dubaridan oo ganacsiga adduunka oo dhan isku yimaado odayaasha marka Zaylac ay xukumayay dawladda Awdal laftigeeda waxa la aasaasay 850 xawaali baa la aasaasay qoraan isaguna Awdali ah oo waqtigaas Ibn Saciid ku beegan ma isaguna faahfaahiyo faafahinta ugu badan bixiyay oo xusay dawladdu ilaa xeebta Zaylac ilaa dhul hadda maabkaas kale Abuukar waxaan ka codsanay isagana aad u dhiib maabkaas kale ilaa haradan taana webi ku dara oo la yiraahdo Oomo intaas oo dhan imbaratoriyad bay noqotay intaas oo dhan islaamka ku faafisay waxa ka dhisay boqortooyo ka dhisay marka odayaasha markii hore u talinayeen nin marka la yiraahdo Umar Wali Asma oo isaga saldhigiisu uu ahaa gudaha magaalada Awfaad la oran jiray oo webiga Hawaash iyo Addis Ababa u dhaxaysay saldhigiisu ah oo isaguna dhulka gudaha dhan isku xukumayay Faysal waxa la yiraahdo oo kale odayaashan Zaylac fadhiyay iyo nidaamka Zaylac fadhiyay ayuu wakiil uga sii ahaa gudaha fog wakiil uga sii ahaa meel Addis Ababa ku dhow xaruntiisu ah magaalo caan ah Awfaad la yiraahdo
ninkaas ayaa mideeyey 1210kii maamulkii awda mideeyey oo wuxuu dhisay boqortooyo jirtay ilaa 200 nimanka aad maqasheen oo xukumayeen dhulkaas Sacdudiin iyo Xaqudiin iyo Jamaaludiin iyo Imaam Maxamed iyo nimankii markii dambe Imaam Axmed uu ka soo baxay nimankaas oo aan wax badan leeyo ka shoogin laakiin ah niman Soomaali oo la yaqaan abtiriskooda la yaqaan oo leena ka qariyay nidaamkaas weyn buu sameeyay ninka dawladdaas marka awda maxay samaysay horta marka koobaad waxay ahayd imbratoriyad intaas oo dhan bay gaartay muslimiinta geeska Afrika oo dhan bay dawlad u ahayd dadkaas halka aan degayno dhulka fog waxa deganaa dad kale oo kuushi ah Soomaalida la xiriira Highland Eastern Cushitic baa afka ka lagu yiraahdaa dadkan hadda hadiyada iyo sidaamada la yiraahdo dadkaas bay muslimiinta imbratoriyad waxa soo dhan bay sukeen muslimiinta geeska Afrika oo dhan bay dawlad u ahayd xabashida ayaa 1300 iyo xoogaagi waxay ka timi wallo amxaarada oo dhulkaas sidaa ugu soo fiday dagaal bay la gashay laba qarni iyo ka hor iyo nus qarni iyo rubuc ka hor bay Imaam Axmed ka hor dagaal kula jirtay way difaacday adigu inkastoo dhul laga qabsaday aan dad Soomaalidu ku badnayn haddana dhulka Soomaalida way difaacday xadku wuxuu ahaa si kale kuma garataan meesha hadda aad sababa ay tahay way xadka awdal iyo amxaaradu ahaa markay soo fiday 1332 bay bilowday soo fiditaan waxay kaloo haybadeeda ku fidisay dhulka Soomaalida oo dhan oo waxay ahayd dawlad qaran qoraallo badan baa jira oo inkastoo ay ku beegan yihiin 5 qarni ka hor oo xusaya in meesha la yiraahdo Raas Casayr dhulkan hadda bari in ay ka jirtay maamul saldanad wax ku ool ah oo laga xukumo dawladda awdal ay xukunto ilaa 5 qoraal baa jira oo arrinta Boortaqiis iyo Xabashi isku jira magaalada Xamar la yiraahdo Xabashida laftigooda ayaa markay dagaalamayeen waxay yiraahdeen Xamarna dawlad baa ka jirtay oo haddii Xamar laftigeeda dib aan ugu noqdo الحموي أو وقت هاي العيد كان حصي باوحو حصي أو يرى أضيال بحمر أوتالية كم ملحير إليهم قراء البنادير بارنتا قراء أحسن وحوليه إسلا وقت جاءها كوني لا بقولي كنت كيسون كبيرة وحوليه شو مركي أي أضيال كسر على أي مجال الحكومية ومجال السلطان أين لهين أيها كون يلا بقولي لحد في وقت كبيرة نيل يرى فخر الدين سلطان نقضي ومجال المامل كيدي مدي مامل كاس waxa marxanti ka noqday ibn Batuuda 1330 marka maamulka ninka Suldaan Fakhruddin markuu magaalada maamulkeeda bidaynay 60 sano ka bacdi ama 70 sano ka bacdi buu xamartay wuxuu ku arkay oo sifeeyay oo qoraalkiisa ku qoran dawlad maamulkeedu u og yahay dawladaha casriga ee maanta jira oo nin leeyahay Suldaan Abu Bakr oo yiraahdo af Soomaaliya af Carabi ku hadlay wuxuu xukumayay koonfurtuna saasay ahayd marka dawladdaas awdal oo nooca ahayd xabashidu quraan ay leeyihiin waxay yiraahdeen dawladda xamar ka jirta waxay caawisaa oo xiriir la leedahay dawladda nala dagaalamaysa ee awdal waxa kaloo jira qoraal Boortaqiis ku soo gaaray 500 sano ka hor soo gaaray gobolka ninkii Faasco Dagama oo walaalkiis markii dambe ciidamada Imaam Axmed ay dili doonaan Boortaqiisku wuxuu leeyahay isla dhulkii aan xusnay oo Shabeelle iyo Maliidi u dhaxeeyay oo qaraa'ilka Soomaalidu ay deganaayeen wuxuu leeyahay waxa dhulkaas oo qabaa'ilku u magacaabay Soomaalida ahaa iyo nidaamkooda inay markaa muslim ahayn xoolo dhaqatadii iyo geeli dhaqanayeen wixii ay ahaayeen wuxuu leeyahay waxay hoos imaanayeen qabaa'ilkaas oo ka haybaysanayeen dawladda awdal ee xabashida la dagaalanta dawladdan awdal oo dawladda qaran ah sida ahayd sidaas haybadeeda ugu fidisay oo guri kasta oo Soomaaliyeed haybadeedu u ahayd dawlad qaran markii dambe Imaam Axmed waa tuu soo baxay Imaam Axmed qaabku ku soo baxay waxay ahayd qaabkaas labadii qarni iyo rubuc ay xabashida la dagaalamayso oo meesha ay ku horeysay habac baa soo galay dawladdii dagaal baa wuxuu ka dhacay meel aad sabab ku dhow 1517 markaa Boortaqiiskuna waa joogaa iyadoo oo Boortaqiisku uu duqeynayay Sayla oo burburinay marka ninkii caanka ahaa ee Garaad Maxfuud oo abaanduulihii ugu weynaa ee adduunka soo maray baa loo ictiqaadiyaa inuu kamid ahaa oo suldaanku ka hooseeyay ninkii baa meesha lagu dilay suldaankiina goobtii uu ka soo caray suldaankiina waxa lagu eedeeyay in uu goobta ka soo cararay abaanduulihiisa una caawin dagaal sugayaa markaa dhacay oo bilowday suldaankii baa la dilay iqtiyaal lagu sameeyay dagaal baa dhacay
dagaalkaas niman dhalinyaro oo tawriyiin oo leh saldanadii way dabacday ayaa waday nimankaasaa imaam axmed ka soo dhex baxay garaad maxfuudka la dilayaa waa ninka imaam axmed sodogiis gabadhiisuu guursan doona wiil yar buu marka ah marka isagoo yar baa hogaamiyihiisii dhintay isagaa loo magacaabay saasuu kusoo baxay imaam axmed marka dowladdiisu saasuu kusoo baxday sidaasuu markaas uu yiri waa inaan anugu istaraatiijiyadii intuu bedelay xabashidaan intaa muddo dheer aan dagaalamana waa inaan jebinaa oo aan ka takhalusnaa hal mar waa inaan wax yar ka xusaa marka ciladii wax walba faa'iidada kaliya la sheega maha ciladii imaam axmed halgankiisii uu leeyimi laba ciladood baa ugu waaweynaa oo markii dambe sabab u noqday dhicitaanka dowladdii awdal oo 7 qarni iyo barka jirtay waxay ahaayeen markuu xukunka qabsaday inkastoo uu maamuus ahaan qoyskii reer waale asmac uu daayay uu xukunka loo ka qaaday oo camal ra'iisul wasaare ahaan u shaqaynayay haddana awoodii buu ka yariyay markuu isagu dhintay amiir nuur waa tuu soo bedelay amiir nuur waa tuu soo nooleeyay dowladdii waa tuu ninkii galawdi was oo imaam axmed dilay Portugiisku markuu dilayay uu la joogay waa tuu bedelay waa galawdi laftigiisa waa tuu dilay amiir nuur markuu dhintay dagaal sokeeyaa bilowday dagaalku sokeeyaa wuxuu bilowday waxa meesha ka baxay wala suuqa qabsaday waxa meesha ka baxay dowladdii taqliidiga ahayd oo la ixtiraami jiray baa meesha ka maqnay oo reer wala asma madaxda ka ahaayeen dagaalkaas ayaa markii dambe keenay awdal inay ku burburto ciidankii ay dowladdu iska lahaydna wuxuu ku baaba'ay oo ku luflufay dagaaladii xabashida lagula jiray marka dadka kan aynu walaalaha nahay oromada oo ka yimi koonfurta baari meel halkaas oo galbeedka koonfurta galbeed ee nagayna baa waqtigaa fidayay iyagaa kusoo fiday nimanka dayrka uu kaga wareejiyey amiir nuur harar ma aha xabashiduna ma haweysan jirin inay harar aagisato laba jeer kaliya timi oo kusoo dhawaatay labadiina waxbaa ka raacay waxay ahaayeen oromada oo fidaysay oromada ayaa sabab u noqotay awdal oo ku jirta dagaal sokeeya inay dabada iska raaciso oo dhulkeeda qabsato 90% harar bay ilaa xadku wuxuu ahaa meel adsabay halkaa jirta labada ciladood baa sabab u noqday dowladda awdal inay dhacdo ka soo tag maadaama waqtigu uu yar yahay waxaa la yidhi meeshaad nin ku xustid nin baad uga tagtaa waxyaalaha aadka u naqaan waa ka gudbayaa waxaan usoo gudbayaa xilligii ururka dhalinyarada soomaaliyeed ama udhis waxaa la asaasay 1933 oo cabdirasaaq uu ka mid ahaa munaasabadda loogu magacdaray waa dhici kartaa riwaayado kale inay jiraan laakiin riwaayadda aan ugu arkayo qaabka ay ku samaysantay waxaa la yidhi yaasiin cusmaan waan ogahay inaad jiil cusub tihiin oo magacyadan dadkaan magacaabaya iyo marka laga reebo cabdullaahi salaad iyo rag kale ay si fiican sawirku idinku caddayn yaasiin cusmaan oo rooma ka soo noqday baa 1913 markaas talyaanigu ma joogo talyaaniga ingiriiska jabiyay 1941 dagaalka labaad ee adduunka oo ingiriis baa Soomaaliya oo dhan isku xukuma markaa oo rooma ka soo noqday wuxuun baa ku soo dhacay oo la xiriira qarannimo iyo Soomaali in nidaam qarannimo u raadiyo loo sameeyo Cabdulqaadir Sakhaawudiin oo isaguna Addis Ababa ka soo noqday uu la kulmay markaa wuxuu ku yiri warniyo dareen noocaas ay ugu jireen see wax nira waxay yiraahdeen ninka la yiraahdo Maxamed Xaaji Xuseen oo mahadaay dukaan ku haysta ninka araadin ninkiiba u yeertay saddexdoodii baa waxay yiraahdeen niman dhalinyaro aan isu keeno halka aan ku qornay nimankaas 13 aad maqasheen bay isu keeneen qaarkood yar bay ahaayeen wiilal yar baa waxa la yiri nidaamka Ingiriiska oo wadanka xukumaanay kama yeelay wax arrimo siyaasadeed ay wiilashaan iraan safiin baa loo akhriyaa guri cariisha baa la yiri oo aan ka fogeyn saadka Marwaas via Rome Arter oday xashidiiriyay oo oran jiray gurigiisa hoostiisu ahaa baa la yiri bay waxay ugu bilaabeen safiine 13 wiil yarka qaar baa waaweynaa Saydiin Nur Xirsi iyo saddexdooda iyo rag baa waaweynaa laakiin Cabdulqaadir muxuu ahaa ismaa geedi raagay iyo daandhaga weyn oo Yaasiin la dhashay iyo cali borduro isagoo qaraabo la ahaa iyo niman kale oo dhowr ay waxaas oo wiilal yar ay ahaayeen baa siyaasad xataa qaangaar uma ay ahayn safiina loo bilaabo sidaasay ku wateen siyaasadda u hoosgeliyeen markii askartu soo kulmeen safiina loo akhriyo oo ka tagaan markii dambe way iclaamiyeen meel guriga markii dambe uu ahaa guriga baarlamaanku bay ka samaysteen cariish markii hore waxay u bixiyeen nadhis naadiga dhalinyarada Soomaaliyeed macnaha idinku waxa u taqaaneen SWC Somali Youth Club u taqaaneen mar dambe ayaa loo baxshay siyaasad loo rabo intay xoogeysteen ay siyaasad baa noqonayna markii naadiga ku gabanayeen markaa
rag baa soo baxay marka dambe nimankii asaasay yaasiin cusmaan durbadiiba waaba iska dhintayba isagaa la yidhahda aabihii buu ahaa 1947 waaba iska dhintayba sakhaawudiinna waxaan filayaa waqtigu dhintay ima cadda laakiin isaguna wax badan kama sii dambeeyey xaaji maxamed xuseen baa saddexdii nimanka ugu firfircoonaa sii noolaaday oo siyaasadda aada ugu sii jiray raggaana soo baxay aad maqasheen cabdullaahi ciise iyo aadan cadday raggaas iyagu ay soo qoreen oo ay soo rukuruud gareeyeen oo gobolada ay uga yeereen sida mahadday looga yeeray xaaji maxamed xuseen oo kale raggaan ugu caansanaa marka waaba rag gadaal ka soo baxay waqtigu ay ugu yar awgeed raggaas iyo arrimahaas oo dhan ma wada xusi karo waxaan usoo gudbayaa SWL marka taariikhdeedu waxay ahayd laba nooc waqtiga halganka oo 60kii ka horreeyay waqtiga dowladnimada waqtiga halganka meesha ay gaarsiiyeen Soomaalinimada iyo qaabka siyaasadeed oo ay u abaabileen Soomaalida wax ilaa iyo haddeer aynu aragnay oo aynu ka fikiri karna ma aha iyagoo weliba aan aqoon lahayn aqoontoodu siday u gaabneed dadaal bay ahayd iyo ikhlaas wax walba ikhlaaska sameeya waxaa ku tusaya ilaah Jabuuti ilaa Dirdhabe ilaa Harag ilaa Hargeysa ilaa Gaarisa intaas oo dhan ay hal mar isu keenay waa ka gudbayaa waxyaalihii aan waqti waa kuusii dhacayaa baa lagu yiri dhinaca dowladnimada u gudbaya dhaqankii marka dhaqankoodii wuu ballaarnaa dhaqankoodii waxaan tusaale uga dhigayaa maalintii xorriyadda la qaadanayay oo cabdullaahi ciise oo xukuumadda madaxda ka ahaa dadkii lagu martiqaaday xukuumadda sida jaamac maxamed qaalib inuu xusuusinayo waxaa ka mid ahaa dowladda lagu martiqaaday Israa'iil mar dambe ayaa xuluteen dowladdii oo waxay damceen Israa'iil waxay dooneen Israa'iil inay ka noqdaan martiqaadka ay siiyeen cabdullaahi ciise wuxuu yiri dowladda cusub ee dhalanaysa Soomaaliya qalad qowlkeeda ma jabinayso Israa'iil buu la xiriir wuxuu idinku ka noqdo annagu afkayga kama orano idinku ka noqdo martiqaadka annagu kuma qanacsanin inaad noo timaadaan sidaasay ku dhacday dhaqanka dowladnimo ay ku bilaabeen iyo sida ay dareemayeen noocaas u ah aan u soo gudbo marxuumka waqtiga ciriiriga awgees laba qiso ayaan idinka sheegaya oo inta badan jiilkiinu ayna wax badan ka maqan laakiin dadkii waqtigaas ahaa ay wax kama maqleen maamaha waxaan u maleynayaa ragga qaarkiis ay maqleen oo ay la socdaan maamaha la yidhaahdo catoosh iyo ilaah baan ugu dirirayo dhanka catoosh baan u cirsana maamadaas waxay ku baxday catoosh wuxuu ahaa baan idiin sheegaya labada arrimood aan idinka sheegayo ka mid ahaa catoosh meel magaaladan Gaalkacyo waqooyiga ka ah bali la yidhaahdo roox baa la yidhi reer muduggu ay biyaha fariista beerna way ka samaystaan marka balliga waxa ag mara tog biyuhu raacaan oo weyn oo webi oo kala ah laakiin waxa u dhaxaysa karin yar oo buur yar u dhaxaysa marka meeshaan biyaha fariista durbada way ku ah biyahan webiga raacayaan way iska tagaan catoosh dadkiiba isugu yeero wuxuu yiri meeshaan buurta oo karinta u dhaxaysa balliga iyo toga aynu jabino aynu qodno oo baabino gudmihiina soo burta meeshaan aanu meesha ka leexino si biyahan aynu usoo leexino balliga aynu usoo leexino arrintii waxay qaadanaysaa sanooyin meel buur dhan oo la rabo gudmo in lagu qaado dadkii baa daalay marka nin ka mid ah xooggii arrintaa ku jiray wuxuu yiri macnaha markuu arkay catoosh arrintiis inuu ka noqonayo wuxuu yiri catoosh ilaah baa nagu dagaalamayo dhanka catoosh baan u ciirsana catoosh wuxuu ahaa cabdirasaaq awowgiisi labaad cabdullaahi salaad baa iga badayaan malay awowgiisi labaad u yahay awowgiisi koobaad buu ahaa awowgiisi koobaad baa soo xaaji xuseen ku dhalay marka arrintaas oo waqtigaas waa 150 sano ka hor meelahaas marka arrintaas dhacaysa Soomaaliya iska dhaafay adduunka kale oo dhan mashruucna sida u hanweyn in qof ku fakaro waxay ahayd wax aan jirin meelo yar bay ka dhici jirtay mashruucan noocaas oo kala ninkaas marka cabdirasaaq ka soo jeeda kan kale oo isaga maamulkiisa ku saabsan qisada kale oo maamulkiisa la xiriirtay waxay ahayd arrintan maalintii uu aanu maqalnay ahayd ka warqadda cas waxay ahayd ninkii shaqadiisa ka soo bixi waayo oo shaqaalaha dawladda ka mid ah warqad cas baa loo keeni jiray shaqadii waa laga ceeliyay macnaheedu ahayd ragga arrintaas oo ku dhacday waxaa ka mid ahaa nin cabdirasaaq walaalkiisa oo la yiraahdo cabdulqaadir cawar warqadda caseed baa loo keenay shaqadii waa laga ceeliyay
ninkii wuxuu noqday baagamuuda shaqo la'aan baa ku dhacday maalintii dambe uu fakeray wuxuu yidhi bal cabdirasaaq isagaa ra-iisul wasaare ah bal wax aad naxariis iyo jixinjix uga heshid samee dameerkan biyaha dhaamiyo magaagaas dameer baa xamar biyaha xamar u dhaamin jiray dameerkiibuu nin ka soo amaahday wuxuu yidhi dameerkan adoo dhaamiya shaqooyinka markaas waxaa loo arkaya dameer dhaaminta shaqooyinka ugu liita oo magaalada ka socda baa dadka badankiisu u arkay dameerkiibuu soo kaxaystay qaydkiisa yaraabu soo xirtay guriga cabdirasaaq uu soo garaacay albaabka waxaa ka furtay gabar uu qabay oo mulaaxa la oran jiray waaba ku nacday cabdirasaaq oo guriga joogay ba ku orday waxay tii wareedhe walaalkaa cawar oo dameer dhaana wada baa idinta taagan oo muxuu rabaa in laga gato biyaha laga gatuu rabaayo lacagu ka helo wuu shaqaysanayaa biyaha ka gadoy sidii baa la yeelay cawar waa wax garowshiya ay jixinjix oo ka waayey cabdirasaaq meeshiibuu ka huleelay saasay noqotay sidaasuu ku imaansaday inuuna ku garaystay cabdirasaaq inuu u jixinjixay marka shaqadiisa iyo arrintan laleeyahay karti iyo hufnaan iyo siduu isagu ugu adkaa iyaduna taasaa tusaale u noqonaysa marka cawar iyo catoosh tusaale fiican bay ka bixin karaan cabdirasaaq xafiiskiisa markuu isagu ra-iisul wasaaraha noqday niman badan oo ay qaraabo yihiin oo isaga ay isku dhow yihiin oo xasan cali miraan uu ka mid yahay markaa PhD haysta keligiis waa isku dhow kama hadlaya qabiil waxaan ka hadlayaa ilmaadeertiis labaad iyo ilmaadeertiis saddexaad iyo ilmaadeertiis afraad baan ka hadlaya dadka magaala soo galka ugu fursad badan oo aqoonta iyo ka faa'iidaysiga iyo magaalada dadka ugu roon bay ka mid ahaayeen Soomaalida niman badan oo noocaas oo wada shahaadooyin soo wada qaatay ama aqoon leh baa magaalada joogay midna uma u furin oo midna abaar uma sheeganayo dadkii markaas ugu aqoonta badnaa oo magaalada joogay nin ka mid ah oo shireen waxa la oran jiray shahaado sare ku qaatay Mareykanka ha masar ku qaatay Soomaaliya ninkaasu u qortay xafiiskiisa inuu maamulo dad yar oo baa shahaado noocaas haystay oo shireen waxa ka mid ah isagu u qortay nimankaas oo dhan ma u darin madax meesha aan arkayna hadda leena ku ababiyay madaxda hadda jooga nin walba nin ay qaraabo yihiin buu markuu xafiiskiisa ku bilaabaya shireen waxa ay cabdirasaaq waxba kama dhaxay dhaqanka SWL marka laga dhaxlay noocaas ah waxyaabo badan oo xasan cali miraan xataa laftigiisa qaabka uu PhD-da ku helay haddaan waqtiga qaar cumar inaad isar waqti qaabka PhD-da ku helay haddii la ka sheekayo waxay idin tusaysaa dhaqanka SWL sida uu ahaa taa kaliya aan ka dhaco xasan cali miraan ayaa dhowr sano ka hor iga sheekayay marka wax ka badan wuxuu igu yiri laba nin oo nin la oran jiray maxamed dalbaas oo reer hobyood ahaa iyo nin kaloo isaguna reer mudug ahaa oo la oran jiray mahdi ciido ayaa waxay ka shaqeeyeen xafiiska qaramada midoobay ay ku leeyihiin muqdisho waa waqtigii u dhis ay halgamaysay 1953 wey labadii nin waxay ii keeneen buug iyagu shaqaale hoose ahaayeen akhriska iyo kuma fiicnayn buug waxay ii keeneen la yidhahda Steady Abroad waxayna war xasan oo adaa wax dhigteen buuggan qaado oo waxa ku yaala akhri buuggii baan akhriyay waxa ku yaala sida Mareykanka looga helo deeq waxbarasho waxaan u tagay buu yiri nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Nuur Xirsi Cabdiraxiiskii maalintii dhawada Cabdirasaaq maalintii dhimanay maalintii koreysa ku dhintay Boston ku dhintay walaalkiis oo markaa dhalinyarada iyaguna wax dhiganaya baan u tagay wuxuu yiri arrintaan aad jirteen kaala arrintaan raadsanay arrintii baan raadsanay waxaan tagnay buu yiri arrin iyaduna tusaysa qaabka loola macaamilo Soomaalida dawladaha qaabka ay hadda wari taagan waxaan u tagnay buu yiri qunsuliyadda Talyaaniga ninkii baan u tagnay markaasaan waxaan wareer tasdiiqin baa loo baahnaa laba oday oo Soomaali iyo qunsuliyadaha mid ka mid ah inay soo tasdiiqiso sax deeqda waxbarasho helaan qunsuliyadii baan u tagnay waxaan arrintan noo tasdiiq arjigaan qoranay waa kan ninkii wakiilka Talyaaniga wuxuu yiri waa tuugo waraaqdu qoray wuxuu yiri nimankaan aqoon ma laha waxba ma bartaan waa beenloyaal waxaan u tagnay buu yiri safaaradda Ingiriiska qunsuliyadda Ingiriiska aan u tagnay safaarad markaa ma jirin ninkii waan soo dhaweeyay tasdiiqintii buu noo sameeyay waxay taas noo furtay buu yiri laba nin oo meesha ka shaqeynayay ninkii Yaasin Ismaan Kennedy oo badankeenu aan maqasheen iyo nin kale oo isagoo meesha ka shaqeynayay inay iyaguna noqdaan labadii oday oo noo tasdiiqinayay marka waxaan uga daleeyahay halka kan Nuur Dalbaas oo reer hobyood ah rag badan oo qaraabadiisa wax bartaan magaalada jooga ma u raadsan xasan cali miruu geeyay buugii wuxuu yiri halkan waxbarasho ka raadso xasan cali miruu laftigiisu qaraabadiisa ma waaday Cabdiraxmaan wuxuu soo saaxiibkiisa ah buu raadsaday waxna kama dhaxay qaabkaasi marka wuxuu ahaa dhaqankii laga dhaxlay u dhis
marka arrinta tan inaan wax badan ka sheekayno sidaan marka hore xusay taariikhdan iyo waxa walaalkeena uu xusay hal arrin baan ku daraya ninkaas arrintu xusay muhiim bay ah arrimaha hadda aan xusay waa hogaaminta siyaasadeed hogaaminta aqooneed waxba kama aan xusay wax badan baa ku jira ninka uu xusay shira jaamac iyo niman badan oo hadda waxa xilliga ka sheekeynaya kutubta ku qoran oo qarniyadii dhexe konton sheekh oo Soomaaliya ayaa kutubta siirada adduunka ku qoran uu kamid yahay sheekha caanka waxa la yiraahdaa wuxuu kamid yahay culimada ugu sarreysa xagga xadiiska caalamka islaamka Abdullah Yusuf Zaylac oo intuu Zaylac ka tagay markii dambe Qaahiro ku dambeeyay 7 qarni ka hor diblomaasi ahaa dawladda awdal aan sheegay ayuu diblomaasi u ahaa oo masaarida kala hadli jiray masaaridu waxay xiriir la lahaayeen nasaarada xabashida marka ninka diinta xabashida xukuma Qaahiro laga soo diri jiray marka masaarida lacag badan sii jiray si arrinta ugu fududeeyaan arrintaas kula hadla wuxuu yiri dawladda talimanka kale lacag siiyaysan muslimiinta dadka iyaga ilaayaan ninka diblomaasiga baa kamid ah sheekha waxa kamid ah oo ay tahay inaan xuso Cabdirasaaq dhowr asbuuc ka hor waxa dhintay aw jaamac Umar Ciise laba cali isma weydii aw jaamac Umar Ciise wuxuu kamid yahay hogaaminta aqooneed ee Soomaaliya sida ninka shira jaamac iyo rag badan oo kale isaga iyo Muuse Galaal waxa la yiraahdaa waa nimanka buuniyaasha iyagu isu soo saaray buuni aw jaamac Umar Ciise waxa ka baranay caalim ama professor waxa tiraahdaa af Soomaaliga waxa lagu yiraahdaa buuni marka buuniyaasha isu soo saaray buu kamid ahaa isaga iyo Muuse Galaal oo cidna wax ma dhigin iyaga wax isbaray aw jaamac Umar Ciise iyo Cabdirasaaq in lagu xusuusto dadkeena wanaagsan salafkeena wanaagsan labadu waa mudan yihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullahi